بسم الله الرحمن الرحيم walaalkeena Bilaal Bulshaawi waxaan leeyahay Ilaahay ha ku caafiyo wax dhibka ku geystana waa gacan ka xaq daran walaalkiyo waxaan ku leenahay mar labaad Ilaahay ha ku caafiyo caafimaadkana Ilaahay ha haayo laakiin waxaan rabaa dadka isla dhex marayo waxaa ka dambeeya qolyahan la yiraahdo afduubka ama waxaa wadada isku dhacsan yihiin horta qorshe wuxuu ahaa ninkan in laga taqluuso oo la dilo ayuu ahaa qorshaha muhiimada taas ay ahayd xabad loo wadana madaxa inay lagu dhuftaa la rabay laakiin dad badan ayaa waxay leeyihiin maqaayadii ragga soo galeen intay ka baxeen marka waxaan dhihi lahayn ciidamada amniga ayaa u xil saaran wixii baaritaan ah aniga kali waxaan qaban karnaa waxay tahay waa inaan u duceynaa waay ma rabno inaan social media iska soo istaagno dee wax been aan sheegno inaan meel iska soo istaagto wax been aan sheegto ma fiicno okay waxaan u daynaynaa ciidamada dambi baarista waxaan leenahay dad badan hadda waa soo qabateen waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala dadka noocaas oo kriminaalka oo kale ah in bulshada Soomaalida laga qabto waa wax anaga sharaf noo ah waa wax ummadana sharaf u ah saraakiishan waxaan leenahay hadda waxaan ka hadli karnaa waxay tahay saraakiisha waxaan leenahay hal xoojiyo ciidamada dambi baarista ama ciidamada dharka cad in la xoojiyo kale insha Allah taala haduu Ilaahay raaxo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mideeda kale aad iyo aad u mahadsantihiin sida xoog u socdo subscribe-ka aad iyo aad u mahadsantihiin mar dhow 10k aan gaar doonaa insha Allah taala haduu Ilaahay raado ka badan waa rajeynaynaa insha Allah taala waan jecel dhamaantiin love you guys.